maamulka golaha deegaanka ee degmada Boorama ayaa kulan ballaaran oo afurin ah la yeeshay qurba-joogka ka soo jeeda gobolada Awdal, Salal iyo Gabiley. Kulankaasi oo ka dhacay hoteelka Rais ee magaalada Boorama waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha iyo ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Boorama, gudoomiyaha jaamacadda Camuud, xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada iyo xildhibaano golaha wakiilada Somaliland ka socday. Salaadiin qurba-joogta ka soo jeeda goboladan oo ka kala yimid iyagu dalalka Yurub, Waqooyiga Ameerika iyo wadamada Carabta. kulankan ayaa waxaa qabanqaabadiisa lahaa maamulka dowladda hoose ee degmada Boorama, taasoo gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama Suleymaan Xasan Xaddi faahfaahin ka bixiyay ujeedada kulankani, isla markaasina uga xog warramay qurba-joogta iyo marti sharaftii kale ee kulankan goobjoogga ka ahayd waxqabadka ay ku tallaabsadeen ka maamul ahaan muddadii ay xilka hayeen. waxaan markaas ugu yeedhay in aynu isxuquuraysano annaguna xog aan ka siino degmada Boorama kulley wixii waxqabad aanu ka qabanay intii ka dambeysay doorashadii golaha deegaanka ee markii la doortay kulley wax badan baanu sheegi jirnay saamiyaga ka daawateen oo aad u qurxoonatay waxaas la qabsoon maayaan waxaanu dadka maanta ku wareysay kale lagu wareejiyo oo sheegno xanay oo wixii wanaagsanaan tifiyada ka sheegay waxaa laga rumaysiinaa kaadiga laga soo gudbaa hadalkan beebo hada wixii xaqiiqo oo Suleymaan muxuu noqonayaa kaas waxa weeyaan saddex shay oo baan qaskanay inaan jidkii magaalada wax ka qabano town planning oo iminka saad maalmaha baarkiiseen aan ka salaysanay qalabkii shirkadana Somkey Bro aad u qaybtay oo qalab badan oo ay haysan ka faa'iideyno town planning aan hagaajinayno qodobka shaqo abuurka oo dhalinyartii wali gidaagada ay fadhiyaan oo taariikhda ay ugu badan tahay. sidoo kale waxaa isaguna warbixin ku saabsan jaamacadda Camuud ka siiyay kulankan qurba-joogta iyo maamulka degmada dhex maray gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Suleymaan Axmed Guuleed. lixdii bilood dambeysay waxaan ka shaqeynay strategic plan-kii 5 sano soo socday oo basically way karaan finalize gareynayna walow daldalalada hawada soo korayo oo kuna la aqoonsanayn oo aan karaabsanayn macaawinaan siin haddana laba arrimood baa Boorama lagu soo socdaa runtii in badanna waa looga sii socdaa dhaqaale ku jiro xagga wajahliga Hargeysa looga tago inna waa loo soo socdaa meel kasta waa looga yimaadaa waxbarasho caafimaad meel walba looga yimaado Boorama maanta inta Soomaalida ku nool. Sultan Suleymaan Cali Ismaaciil oo isagu ka socday madaxda dhaqanka ee gobolka Awdal ayaa kula dardaarmay qurba-joogga midnimo iyo wax wada qabsi inay yeeshaan. ku bishaaraysta Sultan ma kala socda odayaal kala weecsan maalin dhow baad maqli doontaan waxaan soo saaray haddii Allah weeye ogolaado annaga taa markaad naga heshaan idinka midnimada laydinka helaya ma laydinka helaya midnimo ma ballan baadeen taa kalena aniga iga suga ninkana ha ka sugina. dhankoodana xubnaha u hadlay qurba-joogta loo qabtay kulankan ee ka socday gobolada Awdal iyo Salal iyo Gabiley ayaa bogaadiyey maamulka degmada Boorama waxaanay ka mahad cesheen kulankan martiqaadka ah ee maamulka degmadu u sameeyay iyagoo tilmaamay inay berber taagan yihiin howlaha lagu horumarinayo gobolka iyo guud ahaan waddanka. waxaana xubnihii hadlay ka mid ah hadalladoodii. laakiin waxaan ka hawaajinaya damaca la yeesho haddii gudaha la joogiyo haddii dibadda jooga waa damactama xaqiina eegta anagu sidaa iyo sidee qurba-joog hataana orana wama dagaalamayn haddana waa dagaalami doona haddii ilaahay ka dhigatu ilaahay musimo. wasalaamu calaykum waraxmatullah. gobolkan iyo dadka jooga hawshii Soomaaliya ku jirtay dhibteedii garabka in badan ay saareen deefteedii maarka iyo laakiinse marka waxaan rabaa inaan dhibkan qaadano deeftan aan ka helo labada in la wada helo ayaa wanaagsanaan lahayd. ma ogi laakiinse waxaa la ii sheegay in shaqada Hargeysa laga soo qoro oo ilaha dhaqaalaha oo dhan laga soo qoro ee Hargeysa oo halkan la keeno oo dadkii u dhashay aanay ka shaqeynin haba yaraatee isduwayaasha hay-adka kale ee dowladda looga badan yahay dadka deegaanka u dhashay. way dhici kartaa inay dadka deegaanka u dhashay iyaguna xaggaa ka shaqeeyaan oo meelo kale ka shaqeeyaan laakiinse statistically maraan soo eegay oo survey soo sameeyey oo soo qoray maan arag yani ratio-da yani la isku qaybin karo dadka gobolka siday dhulka kale uga shaqeeyaan iyo gobolka sida loogu soo shaqo doonto. si kastaba ha ahaatee kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay dhex mara maamulka dowladda hoose ee degmada Boorama iyo qurba-joog ka soo jeeda goboladan oo waqtigan xagaaga fasax ku jooga magaalada Boorama wuxuuna noqon doonaa kulankan mid wax weyn ka tara iskaashi wax wada qabsi oo dhex mara qurba-joogta iyo maamulka degmada Boorama. Haashim Sheekh Cumar Good, Somali TV, Boorama.